السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمر كلا سود وواضح أدي هذا المحسنتين ما أنت وسبتي وأنا أفرت بشا أفراد أبريل سنة كلا بدو كن إيه اللحية لباتنك وقال كان محربا إن ندي كل وذاقه دولة أمريكان كو مالنتي لبات كوجل دريستي إن أي صاحشوا متكمدة دولياشي ديارات دي شلي أي إيران سوري دي F-15 كهيد أمريكان كو عرك أيو كبادي جوبيا ولبا إيجو قطر حوجن وجهية إيرانيين dhulka ayay ka baadi goobayaan dawladda Iiraan waxay xaqiijisay in saddexdii diyaarad ee kale ee u gurmaday inay soo badbaadiyaan labadaasi pilot labada helicopter ee Black Hawk ah ay soo rideen dad reer miyi ah oo Iiraaniyiin isla markaana buuraleyda dega arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya qatarta marka Mareykanka ay wajahayaan haddii askarigaasi ay gacanta dawladda Iiraan ay ku dhigto maadaama dawladda Iiraan ay si aadah u baadi goobayso madaxweyne Trump oo yiri 10 maalmood oo Iiraan aan u qabtay 48 saacadood ayaa ka harsan haddii aysan heshiis qaadan albaabada jaxiimada ayaan ku furaya maxaa u dhiman oo lagu furaya arrintaasina waan idinla wadaagaya Trump ilaa iyo shalay warbaahinta ma uusan la hadlin Trump waxaan ogeyn in uu maalintii ugu yaraan 2 ilaa 3 jeer uu hadli jiray xitaa sabtida iyo xadda waxa uu aadi jiray qasrigiisa Mar-a-Lago oo ku yaala Florida oo ku soo ciyaari jiray golf isla markaana labadiisa maalmood ay nasashada uu ku qaadan jiray ilaa iyo shalay aqalka cad ayaa isaga iyo golihiisa amniga qaranka gaar ahaan qolka situation roomka ayay ku jiraan maadaama wadanku xaalad adag uu wajahayo sicirka shidaalka oo cirka isku sii shareeraya wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo sheegay in green cardkii uu kala laabtay gabar ay ilma adeer yihiin Qaasim Suleymani generaalkii hore ee Mareykanku xilligii hore ee Trump ay ku duqeeyeen magaalada Baghdad ee caasimadda wadanka Iraq isla markaana hadda ICE gacanta ay ku hayso haweeneydaasi ay ilma adeerta yihiin Qaasim Suleymani iyo gabadheeda lana masaafurinayo arrintaasina waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana luweyn karo xilliyada salaada labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada afar cumreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda Mareykanka labadii maalmood ay la soo dhaafay 2 maalmood oo adag ayay u ahayd waxaan ognahay in shalay diyaaradii F-15 oo la yiraahdo Strike Eagle ay Iiraan soo riday isla markaana labadii pilot ay ka baxeen oo parachute ay uga baxeen isla markaana mid kamid ah ay dawladda Mareykanku ay soo badbaadisay horta ciidamadan diyaaradaha wada dagaalka waxa loo tababaraa qaab marka la tababarayaba ay muddo ay isku badbaadin karaan haddii goobta cadawga ay la dagaalamayaan ay noqotaba in ay ku dhacaan shalay ayaa idin sheegay oo afarta xeeladood ee loo tababaro oo siri la yiraahdo SERE waxay tahay marka hore survival in ay isbadbaadiyaan sidii ay isku badbaadin lahaayeen ba si kastaba ha noqotee ay cadawga uga dhuuman lahaayeen in ay isku badbaadiyaan tan kalena waxay tahay evade sidoo kale dhuumasho inaad dhuumato intii aad dhuuman karto iyadana sidoo kalena waa ay jirtaa waxa sidoo kale ku xigta in resist aad sameeyso iska caabin kulay ciidamadan duuliyaasha ee diyaaradaha wado hub iyagu ma wataan maadaama hubka ay wataan diyaaradaasi uu yahay oo isla yihiin way adag tahay inaad soo dhacdaan marka waxa ay macnaheedu tahay in ay intii ay iska caabin sameyn karaan ay iska caabin sameeyaan tan afraadna waxay tahay escape baxsasho in ay baxsadaan marka hadda waxa la leeyahay askarigan in uu dhaawacan yahay oo dhaawac halis uu qabo inuu dhaawac fudud qabo iyo in uusan dhaawacnayn intaba lama oga maxaa yeelay wax communication laga mahayo
labada baylood diyaaradda markay baarashuudka uga baxaan waxa la leeyahay meel aan kala fogeyn ayay ku degtaan maadaama inta badan ay isla socdaan haddaana midkood ama labadooduba aysan mirdaboolmin oo aysan hagi karin baarashuudka ay saaran yihiin sidaas darteed marka waxa la leeyahay qalab ayaa jira ku xiran oo kooxaha gurmadka ee doonaya ee soo badbaadiya ogaanaya halka ay ku dhaceen marka maadaama shalay lasoo helay mid kan kalena la soo waayay oo isagoo baadigoobkii socdo ciidamadii raadinayaba ay khatar galeen waxa la leeyahay askarigaasi cunto intee leeg ayuu haystaa dhaawac halis oo u dhiman kara miyuu qabaa marka ilaa ay hadda xaaladiisa lagama warqabo waana taasi midda dowladda Mareykanka walwalka aadka u faraha badan ku hayso marka saddexdii diyaarad ee loo diray inay soo badbaadiyaan laba diyaarad oo helicopter oo kuwa Black Hawk la yiraahdo iyo diyaarad la yiraahdo A10 Warhawk saddexdiiba waa la soo riday Iran hadda waxay leedahay marka labada diyaarad ee helicopterka ee Black Hawk waxaa soo riday dad reer miyiga oo buuraley ah qoryaha sida aragtaan dadkan waaye oo shalay baadigoobka iyaguna lugta bilaabay Mareykanku cirku ka baadigoobaya walow hadda waliba halis badan ay jirto meeshuna buuraley ay tahay marka aad wax baadigoobaysana loo baahan yahay diyaaradahaadu inay joog hoose ku socdaan sida shalay dhacday marka saddex diyaarad oo joog hoose ku socdo waa diyaaradahan aad arkaysaan maadaama la soo riday Mareykanku marka khatartaasi ayuu wajahaya dadkan reer miyiga Iran waxay tiri waa dad buuraley oo gurgura waa sida reer miyigeen oo kale qoryaha u jeedaan lixla dheerayaasha qoryaha Soomaalidu u taqaanay wataan iyo waliba qoryo kale oo AK47 iyo qoryo kale sidaas darteed dadkan buuraleyda ah oo buuraha si daga oo reer miyiga ah waxa ay leeyihiin waxay haystaan hub ay meelaha ay degaan xayawaanada ay isaga ilaaliyaan xoolahooda cunaya iyo waliba dadka ka xadaya xoolahooda marka qoryahaasi lixla dheerayaasha ayaa labada helicopter ee Black Hawk ay ku soo rideen dadkaasi reer miyiga ah iyo dowladda Iran ay leedahay marka helicopteradaasi oo Black Hawk duuliyaashii saarnaa waxay dowladda Mareykanku leedahay waa la soo badbaadiyay iyagoo dhaawacyo fudud qaba lama oga inay dhimasho jirtay in kale oo la qarinayo diyaaradan kale oo A10 waxa la leeyahay gacanka Bershiyanka ayay ku dhacday meel aan ka fogeyn Kuwait dowliyihiina isaguna baarashuud ayuu uga baxay oo dowladda Kuwait ayaa soo badbaadisay marka 24 saac gudahood 4 diyaarad ayaa dowladda Mareykanka Iran looga soo riday marka meesha ay dhibaatadu ka dhacday oo diyaaradda F15 horta lagu soo riday waa gobolka la yiraahdo Khuzestan marka waxa jirta laba gobol oo iyaguna ka agdhow gobolkan sidoo kale waxa la yiraahdaa Kohkileya iyo sidoo kale Boyar Ahmed halkaasi ayaa waxay tahay meesha ay ku soo dhaceen diyaaradaha ma diyaaradda koobaad baadigoobkuna sidoo kale uu ka socday marka Iran waxay leedahay anagu ma soo ridno dadkaasi reer miyiga ayaa soo riday waxaana dowladdu ay sameysay ballanqaad sidaan dadkan baadigoobka ay wadaan arkaysaan ay leeyihiin lacagtaasi ayaa la siinaya dadkan reer miyiga horta TV ma haystaan waxa laga yaabaa inay mobilada haystaan oo sidaasi lagu la xiriirayo Iran waxay tiri militarigeenu buuraleydaasi maba gaaraba dadkan reer miyiga oo gurgura hubkoodana haysta ayaa halkaasi degan marka Mareykanku qatar ma gelin karo ciidamo kale oo diyaarado kale oo joog hoose ku socdo maadaama haddii ay duqeyn lahaayeen aagaasina askarigoodii ayaa lagu laayahay oo qatar ku gali kara marka Mareykanka xaaladaasi ayaa haysata madaxweyne Trump ilaa iyo shalay warbaahinta ma uusan la hadlin Trump waxaan ognahay maalin kasto ugu yaraan 2 ilaa 3 jeer haddoosan hadlin hal mar waa uu hadli jiray shalay oo idil xitaa bartiisa True Social wax qoraala ma uusan ku soo qorin hal mar oo shaqooyinka la abuuray bishii la soo dhaafay oo ka hadlayay ayuu ku soo qoray laakiin wax dagaalka Iran ku saabsan ma uusan soo qorin marka waxaa jirta in Trump iyo golihiisa amniga qaranka qolka situation roomka ilaa iyo shalay ay ku jiraan sabtidii iyo hadda waxaan ognahay Trump qasrigiisa Mar-a-Lago oo ku yaala Florida ayuu nasasho u aadi jiray halkaasi ayuu shaqooyinkiisa ka wada jiray golfkiisana ku ciyaari jiray toddobaadkan ma uusan bixin aqalka cad ma uusan ka bixin qolka situation roomka ayay ku jiraan isaga iyo golihiisa amniga qaranka marka Trump waxaan ognahay habeen hore markuu shacabka Mareykanka la hadlayay waa kii yiri gantaaladii lidka diyaaradaha Iran waan burburinay difaacoodii cirka waan burburinay sidaan rabnaan awoodeena cidna celin karto awood military ahaan ma jirto Iran hawadeeda sidaan rabno ayaan u mareynaa laakiin xaaladdu sidii waa iska bedeshay hadda oo Mareykanku wuxuu leeyahay war Iran waxyaabo kale ayayba la soo baxdayba sidaas darteed marka maalintii labaad Mareykanku waa ku guuldareystay in duuliyihii ay la'aayeen ay soo helaan Iran wali ma aysan helin oo shacabkeeda ayaa baadigoobaya oo lacag loo ballan qaaday haddii ay shacabku soo heli lahaayeen Iran waa ay sheegi lahayd nolol iyo geeri in ay duuliyahaasi ay gacanta ay ku soo dhigeen marka madaxweyne Trump qoraalkan ayuu bartiisa True Socialka maanta ku soo qoray qoraalkan Trump waxa uu ku leeyahay xasuusta Iran waxaan siiyay 10 maalmood
oo heshiis ay ku gaaraan islamarkaana ay ku furaan marinka Hormuz waqtigu uu idinka sii dhammaanaya ayuu yiri dowladda Iiraan ayuu ka hadlaya 48 saacadood ayaa ka dhiman ayuu leeyahay inta albaabada jaxiimada aanan idinku furin arrintan xilligii Gaza oo maxaabiista Xamaas haysteen sidaan oo kale u dhihi jiray markii dambena waa tii wada hadal heshiis la gaaray marka waxa uu leeyahay 48 saac ayaa idin harsan Isniinta ayay ku eg tahay marka 10 maalmood oo 6 bisha ah marka Trump hanjabaadiisii ayuu soo celiyay xilli waliba askarikooda gudaha Iiraan lagu laayahay oo maalintii labaad oo Mareykanku guul dareystay in uu gacanta ku soo dhigo dhinaca kale waxa jirta in wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu qoraalkan ku soo qoray bartiisa X qoraalkan waxa uu yahay haweeney ay ilma adeer yihiin generaalkii awoodda badnaa ee Mareykanku ay ku dileen caasimadda waddanka Ciraaq ee Baghdad sanadkii 2020 January 4 sano ee hore ee Trump uu xilka hayay ayaa gabadhan ay ilma adeer yihiin iyo gabar ay dhashay Mareykanka ayay ku noolaayeen waliba nolol heer sare ah ayay ku noolaayeen ayaa la leeyahay green card ayayna haysteen marka wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu soo qoray ilaa iyo dhawaan waxa uu yiri Xamiida Suleymaan Afshar iyo gabadheeda waxa ay haysteen green card dad haysta ayay ahaayeen oo waliba nolol heer sare ah Mareykanka gudihiisa ugu nool marka waxa uu yiri hadda Afshar iyo oo ilma adeer ay yihiin generaalkii Iiraaniga ahaa ee dhintay ee Qaasim Suleymaani isla markaana sidoo kalena ah taageero dowladda Iiraan u muujisa isla markaana u dabaaldegta weerarada ka dhanka ah dadka Mareykanka ah isla markaana Mareykanka xitaa tiraado waa shaytaan weyn waxa uu sheegay hadda toddobaadkan in green cardkeedii gabi ahaanba la kansalay Afshar iyo waliba gabadheeda isla markaana hadda aysan wax sharciya Mareykanka ku haysan oo gacanta ciidamada ICE ay ku jiraan isla markaana la doonayo in waddanka Mareykanka laga masaafuriyo marka waxa uu yiri maamulka Trump marnaba ma ogolaanayo waddankeena ayuu yiri inuu noqdo meel guri u ah dadka ajnabiga ah kuwaasi oo taageera dowladaha argagixisada ah ee Mareykanka ka soo horjeeda marka gabadhan Qaasim Suleymaani generaalkii hore oo 2020 Mareykanku weerar oo drone ah uu ku dilay caasimadda waddanka Ciraaq ee Baghdad ayay ilma adeer yihiin iyada iyo gabar ay dhashay marka green cardki ayaa laga laabtay ICE ayaa gacanta ku dhigtay haddana waxa la doonayaa in waddanka laga masaafuriyo sidaasi waxa soo qoray wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio waxaan ogeyn ilaa iyo markii maamulka Trump uu xilka la wareegay in xitaa ardaydii ka soo horjeeday mudaharaadyada sameeyay dagaalkii Gaza ka socday qaarkood waddanka laga masaafuriyay kuwa dacwadahooda ay socdaan kuwana laga laabtay xitaa viisayaashii waxbarashada oo ay waddanka ku joogeen kuwa green card lehna la xiray oo xitaa la leeyahay waddanka ayaa laga masaafurinaya arrintaasina marka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bartiisa X ku soo qoray aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta waxyaabaha kale ee soo kordha stay tuned waan la soo socodsiin doonaa intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo